drug daawadu it is used waxaa loo isticmaalaa to prevent in wax laga hortago waxaas laga hortagi doonaan wax weeyaan oo kaliya qofkan xanuunkii zaid uguma ziyaadin yani qofkan hada xanuunkii waa ay ku bilbilaabanayaa maadaama qofkaas xanuunkaas oo ku bilbilaabanayo daawooyin waxaa jira oo laga hortagi karayo diagnose iyo in wax lagu xaqiijiyo xaqiijintaasna wax weeyaan oo kaliya yani qofkan daawada aasisay in uu ku bogsaday muddo 7 maalmood kadib muddo 10 maalin kadib ama muddo 3 maalin kadib in uu ku bogsaday iyo in kale waxa ku kala saar doona oo kaliya daawada aad qofkaas siisay treat iyo in wax lagu daaweeyo yani qofkan xanuunkiisa ama cudurka uu ka cabanayo hadduu aad u daran yahay ama hadduu dhexdhexaad u yahay ama hadduu in yar u yahay waxa lagu daaweyn karayaa oo kaliya qofkaas xanuunka uu ka cabanayo relief in lagu bogsiyo symptoms calaamadaha of a disease cudurka qofkaas uu ka cabanayo or mise abnormal condition yani qofkan hadduu uu horan caafimaad qabay xaaladiisana ay caadi ahayd hadda xaaladiisa dee sare u kacdo daawooyin waxaa jira qofkaasi xaaladiisa lagu dhigi karayo normal condition drugs daawooyinka kan also sidoo kale effect waxay saameyn u geystaan how sida the brain maskaxda and the rest iyo inta kale oo idin of the body jirka waa ay u shaqeeyaan yani daawadan aad u jeedo waana lagu bogsani karayaa sidoo kalena wax bay kentaa oo yani waxyeelo and the cause iyo sidoo kale waxay sababi kartaa changes isbedel in ay ku keento in mood yani jabiga ama xaaladda qofkaas oo ku sugan yahay awareness qabar qabida yani qofkan hadduu uu wax hor mar walba adiga horan wax soo xasuusan jiray daawooyin oosan ku habbaanan xanuunka qofkaas uu ka cabanayay isticmaalo daawooyinkaas waxay u keeni karaan in yani horan wuxuu xasuusan jiray hadda inuusan xasuusan doonin waayo inta badan daawooyinkan loo isticmaalayo muqaadaraad ahaan oo kale si balwad ahaan haddii lacag loo isticmaalayo waxay inta badan keeni karaan xasuus la'aan dawtis fikradaha yani habka qofkan uu fikri jiray uma fikri doono si caadi ahaan hadduu yani isticmaalo daawo uusan u isticmaalaynin xanuunka qofkan ka cabanayo feelings dareemaha yani qofka bini'aadamka sidiisaba wuxuu leeyahay dareemaha sidoo kale waxa uu kaliya lumini karayo daawada oo qofkan uusan lagu talagalin hadduu yani isticmaalo si qaab daro hadduu qofkan u isticmaalo daawada waxay keeni kartaa dareen la'aan or mise behavior ama dhaqanka habka qofkan u dhaqmi jiray inuu isbedel ay ku keento daawada waxaad ogaataa in daawo sidadba ay leedahay waxyeelo iyo bogsiino marka qof waliba oo maanta isdhahayo haddii uu yani daawo qaldan lagu siiyo yani dhimasho ayaa ku sugnaani doontaa daawo sida barta marka si loo fiiriyo laguma dhinto qof waliba oo maanta xanuunsan xanuunkiisa waxa ayaa loo qiimeyn doonaa daawada qofkaas ay adiga u qaadan lahaa yani daawo kastaba waxa loo qiimeeyaa qofka xanuunka heerkiisa uu marayo